waxaan aad ugu faraxsan horta in awalna qayb galo shirka munaasabada loo sameeyay sanad guurasha 20aad ka soo wareegtay shirka nabadda Soomaaliya lagu qabtay degmada Cabta ee Djibouti marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan hambaliyo shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo saameyn ku yeelatay ama qayb ka qaat horumarinta sektor kasta ama wax kasta oo kamid ah nolosha bulshada Soomaaliyeed waxa ugu muhiimsan waa in la kala warqaato la ismaqlo waxay fursad isgaarsiintii dhaqaalaha isgaarsiintii waxbarashada isgaarsiintii nabadda marka waxaan hambaleynayaa shirkadda Hormuud oo runtii iyada la'aanteed iyo xilliga ay soo baxdo aad u muhiim ahaa aan la iloobi karin waxaan rajaynayaa inay sii jirto horumarna sii samayso ummadda Soomaaliya u sii adeegto biidhnillaahi alkariim waxaan leeyahay hambalyo sanad guurasha 20aad ee shirkadda Hormuud